Gabar arooskeeda lagu galbiyay in ka badan 50 diyaaradood iyo madaxweynayaal ka qayb galay. Si aan ugu dagaalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanid badan. Yuusuf Bukhari oo uu dhalay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa waxa ku baxday aqalgalkiisa toddobaadkan malaayiin lacag ah. Wiilka madaxweynaha Nigeria Yuusuf Bukhari ayaa waxa uu guursaday isla markaana la aqalgalay Sahra Bayero oo uu dhalay Amiirka Biji Alhaji Nasir Ado Bayero. Arooska Yuusuf Bukhari oo ah wiilka madaxweynaha dalka Nigeria iyo Sahra Bayero oo ah gabadha uu dhalay Amiirka Biji oo dalkaasi Nigeria ka mid ah ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari, madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, madaxweynayaal kale, wasiiro, xildhibaano iyo dad badan oo maamuus iyo magac ku leh dalka Nigeria. Ka hor arooska 2 maalin ayaa magaalada uu aroosku ka dhacayay waxaa buux dhaafiyay wufuud badan oo heerkeedu sareeyo si arooska wiilka madaxweynaha Nigeria iyo gabadha Amiirka Biji uga qayb galeen. Wufuud qaar ayaana dalka Nigeria dalalka dariska la waxay uga yimaadeen ka qaybgalka arooskaasi, waxaana wufuudda lagu geeyay amaba lagu galbiyay in ka badan 50 diyaaradood magaalada uu aroosku ka dhacayay. Xafladda arooska ayaana lagu qabtay qasriga Amiirka Biji oo ah aabaha gabadha kuna yaala degmada Biji ee dowlad goboleedka Biji ee gobolka Kano ee dalka Nigeria, waxaana si waafaqsan shareecada Islaamka la isku xiray ama mehriyay Yuusuf Bukhari iyo Sahra Bayero. Wasiirka isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dalka Nigeria iyo adeerka madaxweynaha Nigeria sidoo kalena ah awowga wiilka ayaa markii uu meherku dhacay waxa uu Soomaali ahaan ugu wareejiyeen reerka gabadha lacag gaaraysa 500,000. Bilowga arooska ayaana waxaa hakad la geliyay isla markaana la xiray wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi maadaama arooska qiimihiisu sareeyo halkaasi uu ka socday. Sidoo kalena waxaa la xiray isla markaana albaabada la isugu dhuftay goobihii waxbarashada iyo sidoo kale ganacsiga. Dhanka arooska ah Yuusuf Bukhari oo farxad badan ka muuqato kuna labisan dhar cad oo hidaha iyo dhaqanka dalkaasi ka turjumaya oo ay saaxiibadiis hareeraha ka socdaan ayaa hoolka xafladda la soo galiyay iyadoo si weyn loo galbiyay arooska iyo aroosadda. Waxaana la sheegay in qiimaha arooskaasi ku baxday ama cadadka lacageed in uu ka badan yahay malaayiin dollar oo la sheegay in madaxweynaha dalkaasi Nigeria uu bixiyay, halka dadka qaar ay ku tilmaameen ku tagrifal awoodeed iyo musuqmaasuq in lacagtaasi lagu bixiyay arooska ay tahay lacagtii dowladda.